asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan doonayaa halkan inaan kugu soo bandhigo barnaamij aan ugu magacdaray maxaan ka baran karnaa. barnaamijkan ay qaybtiisa koowaad maanta waxaan kusoo qaadan doonaa shimbirka huduudka, kaas oo ah qiso qur-aanka lagu sheegay. qisadaas oo dhex martay nebiyullaahi suleymaan iyo shimbirka huduudka. shimbirka huduudka waa mid ka mid a shimbirada kaas oo qur-aanka lagu sheegay. maanta waxaan doonayaa halkan inaan kuu soo gudbiyo qisada qur-aanka lagu sheegay ee dhex marta nebiyullaahi suleymaan iyo shimbirka huduudka la yiraahdo. nebi suleymaan oo ahaa nebi allah uu siiyey boqortooyo aan cid isaga ka dambeyda la siin, oo waxa uu adeegi jiray shaydaamada iyo jinka oo badda hoostooda kaga soo aruurin jiray macdanta. waxaa sidoo kale la baray codadka dhammaan xayawaanadooda sida quranjada iyo yaanyuurta. maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebi suleymaan waxa uu safkii ka waayay mid ka mid ah xayawaanadu adeegsan jiray oo ah shimbirka huduudka. waxuuna ku goodiyey inuu cadaabi doono ama uu la imaan doono caddan cad oo wax badan lama sii raagin. waxaa yimi shimbirka huduudka isagoo sida akhbaar uusan boqorka ogeyn. waxauna yidhi, waxaan soo arkay boqorad haysata carshi weyn iyadoo qoomkeedana u sujuudayaan qoraxda ilaahay ka sokow. huduudkiina sidaas ayuu ku badbaaday oo kaga badbaaday cadaabtii uu ku goodiyey nebiyullaahi suleymaan. haddaba maxaynu ka baran karnaa qisadan waxaanu ka baran karnaa inaynu u shaqayno danta diinteenna iyo dalkeenna iyadoo cid noo dirsata aysan jirin. maxaa yeelay kama liidano shimbirka huduudka oo isaga si isxilqaana u keenay warkaas, kaas oo ka naxayay in qof adduunkan dushiisa ku nool uu soo juudo ciidaan aan la ahayn. sidoo kale waxaanu ka baran karnaa qisadan in runta mar walba la abaaro, oo sidaan ogsoonahay dadka hadday madaxda ag joogaan inta badan waxay badan yihiin inay been sheegaan iyagoo ka baqaya madaxdu inay ciqaabaan. sidoo kale qisadan waxaynu ka baran karnaa haddii aad madax tahay inaad dhegaysato qof yar iyo qof weyn hadalladii ay kuu sheegayaan oo aadan yasin. maxaa yeelay nebi suleymaan waa uu qaatay warkii uu keenay shimbirka huduudka isagoo markiiba ku dhaqaaqay sidii uu carshiga saba boqoradiisaba oo xukumi jirtay ardul yaman siduu u soo gelin lahaa diinta islaamka una gaarsiin lahaa, taas oo markii dambe ku guulaystay inay boqoradiisaba ay noqoto boqorad muslin ah. haddaba waxaa la doonaya haddii aad madax tahay inaad hayansiin dadka qaar oo aad mar walba dhagaysato hadallada ay ku soo jeedinayaan dadka